subax wanaagsan dhegaystayaal waa jimci 18 bisha May sanadka 2018 idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idiin haya anigoo Haruun Macruuf iyo Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda subaxnimo waxaa ka mid ah sidee amniga Muqdisho loo hanan karaa. dhiigga muslimku maaragtay waa dhiig xaaraana, waa dhiig sharaf leh, waa dhiig ilaalin u baahan. qofka muslimka ahi xurmo gaara ayuu leeyahay. Ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu dunuubta u tirinayay dambiga labaad buu ka dhigay. waxaa kaloon idiin haynaa barnaamijkii amuuraha islaamka iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya. marka horese warkii dunida. golaha sanadka ee dalkan Mareykanka ayaa khamiistii xalay ahayd ugu codeeyay 54 cod oo ah inay noqoto madaxa CIA-da gabadha la yiraahdo Gina Haspel, waxaana diiday 45 kale. arrinkan ayaa soo afjarayso buuq badan oo ku aadanaa eeda la xiriira diidmo lagala hortagay in ay jagadaasi qabatay kadib markii lagu eedeeyay dhaqan xumo ay kula kacday dad ay horey u wareysatay oo maxaabiis ahaa, taasoo sharci dejiyaashuba ay ku diideen qaarkood. 6 ka mid a xubnaha dimuqraatiska ee golaha sanadka ayaa u codeeyay Haspel, iyada oo 2 ka mid ahna ay soo jeedeen in lagu bedelo Mike Pompeo oo bishii hore u noqday xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka. hogaamiyaha aqlabiyadda sanadka Mitch McConnell oo ah Republican laga soo doorto Kentucky ayaa ammaanay Haspel isagoo sheegay in shaqada ay qabanayso ay mudan tahay in ay noqoto qofka ugu sarreeya ee CIA-da oo lagu xurmeeyo. inkastoo dowladda Mareykanku ay sheegtay khamiistii shalay inay socdaan diyaargarowga loogu jiro shirka la filayo inuu dalka Singapore ku dhex maro madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un, ayaa haddana handadaada Kuuriyada Waqooyi ay ku hanjabayso inay joojiso wadahadalladaasi ay muujinaysaa ka niyad jabsanaan ku aadan mowqifka Mareykanka ee ku saabsan sida hubka looga dhigayo ama hubka nuclearka looga burburinayo xukuumadda Pyongyang. sidaasi waxaa sheegay khubaradii hore ugu soo shaqayn jirtay dowladaha Mareykanka ee wadahadalka la gashay Kuuriyada Waqooyi. khubarada ayaa sheegtay in hanjabaadda Kuuriyada Waqooyi ay keeni karto in dib loo dhigo ama la kansalaba wadahadallada. Christopher Hill oo horey madax uga soo ahaa wafdi Mareykan ah oo wadaxaajood la galay Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegay in haatan rajada laga qabo wadahadalladaasi inay dhacaan ay ka yar tahay 50%. Kuuriyada Waqooyi ayaa muujinaysa inaysan ku qanacsanayn dalabaadka hal dhinaca sida hadalka u dhigtay, waxayna dowladda Kuuriyada Waqooyi sheegtay hadal ay soo marsiisay wakaaladdeeda wararka ay ku sheegtay inay dib uga fiirsanayso wadahadalladaasi oo la qorsheynayo inay dhacaan 12 bisha Juun. wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegay inuusan ku qanacsanayn hadal laga soo xigtay la taliyaha arrimaha amniga Mareykanka John Bolton oo xusay tusaalihii Liibiya in la marsiiyo burburinta hubka nuclearka ee Kuuriyada Waqooyi, waxaana uu ku tilmaamay inay tallaabadaasi tahay mid laga xumaado. waxay sheegeen saraakiisha Kuuriyada Waqooyi in lagu duulay Liibiya kadib markii la burburiyey hubkooda nuclearka. aan ku bilownay dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maalmahan waday dadaalo isdaba joog ah oo ku saabsan sugidda amniga xilliga Ramadaan ee magaalada Muqdisho, waxaana mas'uuliyiinta dowladda ay sheegeen inay doonayaan inay amniga wax iska bedelaan 90 maalmood gudahood iyada oo la kordhinayo ciidanka amniga qaabilsan. xasan kaafi qoysto ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho. sugitaanka ammaanka magaalada Muqdisho ayaa loo maray xilligan waddo ka duwan kuwii hore, waxaana la unkay askar laga soo xulay qaybaha kala duwan ee ciidamada sida booliska, nabad sugidda, milatariga iyo asluubta, kuwaasoo saraakiishu ay sheegeen inay wada shaqayn doonaan mas-uuliyiinta degmooyinka iyo shacabka ku dhaqan waaxyaha iyo laamaha xaafadaha Muqdisho ay ka kooban tahay. afhayeenka wasaaradda amniga Cabdicasiis Cali Ibraahim Xildhibaan ayaa ugu horreyn VOA uga warramay qaabka ay dowladdu ugu talagashay xasilinta caasimadda Muqdisho. waxaa la kordhiyey tirada ciidamada dowladda ee qaybaha
qaybaha kala duwan ee militariga, booliiska, nabad sugidda iyo asluubta waxaa la soo kordhiyey ciidamo ay ku jiraan gabdho si loo xaqiijiyo inaan wax xadgudubyo ah loo geysanin ciidamadeennu aysan uga dhicin muddada howlgallada ay socdaan ama baaritaanadu ay socdaan. haddii ay timaado in baaritaano lagu sameeyo guryaha ay degan yihiin muwaadiniinta mar haddii tuhun ama shaki u yimaado, waxaa laga shaqaynayaa nabad ka dooron tan maanta shacbiga Soomaaliyeed ay haystaan. sanad waliba marka la soo gaaro bisha barakaysan ee Ramadaan ayaa shacabka Muqdisho waxa ay dareemaan walwal iyo cabsi ku aadan weeraro iyo qaraxyo markasta ay macquul tahay inay ka dhacaan magaalada. haddaba maxay diinta islaamku ka qabtaa in dhiigga shacabka la daadiyo muddada lagu guda jiro bisha Ramadaan? waa kan gudoomiyaha hay-adda culimada Soomaaliyeed Sheekh Bashiir Axmed Salaad oo arintaasi ka waramaya. runtii waxaa maaragtay ayaan darro ah oo nasiib xumo ah, bal waxaa la odhan karaa waali oo kale weeye in bishii Ramadaan oo lagu talagalay siyaamka iyo qiyaamka iyo ixsaanfalka iyo afurinta muslimiinta iyo sabarka iyo maaragtay lagu talagalay sadaqada, in dadkii loogu bedelo in dadkii la argagixiyo. iska daa wax kale, xataa argagixinta la argagixinayo qofka muslimka ah ayaa dembi ah. argagax la argagixinayo qalbigiisa oo cabsi la gelinayo lama ogola. diinteena way mamnuucday in xataa qofka muslimka laga faqo. haddii laba qof intay meel isla istaagaan ee afka isku jugsiiyaan, qofna xagga uu taagan yahay oo laga faqahayaa oo qalbigiisa uu geli karo talo maxaa la sheegayaa, arrinkaas waa xaalad dembi weeye. marka qofka muslimka ah oo la diiday in qalbigiisa walwal la geliyo ama su'aal la geliyo, in qalbigiisa cabsi la geliyo, dhiiggiisa la daadiyo kaba sii daranba. dhiigga muslimku maaragtay waa dhiig xaaraana, waa dhiig sharaf leh, waa dhiig ilaalin u baahan. qofka muslimka ah xurmo gaara ayuu leeyahay. ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu dunuubta u tirinayay dambiga labaad buu ka dhigay. ciidamadan loogu talagalay xaqiijinta amniga Muqdisho ayaa waxa dhowaan kulan la qaatay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, waxaana uu u sheegay in looga fadhiyo sidii ay muddo 90 casho ah magaalada Muqdisho nabadgelyo ugu soo dabaali lahaayeen. waa kuwan qaar ka mid ah ciidamada loo qorsheeyay xasilinta gobolka Banaadir oo ka warbixinaya dareenkooda ku aadan hawsha loo xil saaray. 90 maalmood uu ra'iisul wasaaruhu sheegay in aan wax ka qabanno magaalada Muqdisho, isbedel muuqdan aan ka muujino 90 maalmood. maanta waxaan diyaar u nahay inaan bulshada u shaqeyno, taasoo ku salaysan nabadgelyada amniga magaalada Muqdisho. marka waxaan leeyahay Soomaaliya guul. dhinaca kale, qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa markii ugu horeysay soo bandhigay aragtidooda ku aadan ciidamada ay dawladdu ugu tala gashay inay magaalada xasiliyaan iyo baqdinta ay ka qabaan inay dhacaan falal amni darro muddada lagu jiro bisha Soonqaad. muxudiin sheekh cali, waxaan aaminsanahay ciidamada loogu talagalay in ay xasiliyaan bisha Ramadaanka ee dawladda ugu talagalay. horta waa soo dhaweynayna wax lagu farxo, laakiin waxaan jecelnahay in dadaalka intaa uu ka sii bato. sababtoo ah xalay bishii waxa ka dhacday magaalada Muqdisho waxyaabo oo dheemisha oo dhibaato ah. marka qaraxyadaas yararka xataa anagu ma adkaysan karno, anagu dalka kama bixin. waxaan jecelnahay xasilinta inay ahaato mid dhab ah oo ciidamadu si toos u xasiliyaan oo dawladda sii adkayso. wax yar xataa in nagala naxiyo anaga odayaal baana iyo hooyooyin ma ogolin. cali Saciid cali, waxaan u arkaa dawladdii xasan sheekh baadsi nabad ku afura. anaga shacab baana in la kaga daro ma rabno. waxaan leenahay xalay waxa dhacay magaalada Hoobiyaal, qaraxyaa ka dhacay. waxaan jecelnahay ciidamo tiro kooban, waxa wax ridaya waa dad la yaqaan, waa goobo la cayiman, ciidamo tiro kooban oo xasilin kara magaalada in loo soo daayo. ciidamada faraha badan oo dhanka kala goonida wata oo qoryaha wata oo kuwa macawsaha wata hanal ka joojiyo ma dul qaadan karnaa shacabka nahay. aniga wax walwala oo soonka la qabo uma jeedo, because hadda dawladdu waxay samaysay tactic, ciidamo waxay samaysay geed walba taagan. saddexdii ciidan oo Soomaaliya haday tahay xooga dalka, biliiskii, asluubtii way wada shaqeynayaan. waxaa dheemiskaana waa wadan 27 sano burburay, no problem. laakiin tactiga dawladdu samaysay soonkan waxa lagu afurayaa si aan la argo la maqal oo nabada. madaxda naftigeeda abuuraysa khalkhal iyo amni darro waxay abuurayaan. waxaa ka mid ah matalan waxay wataan hub aad u fara badan, small arms aad u fara badan bay wataan, mashigaanay wataan. waxaasoo dhan in shacabka laga dhex daayo oo iyaga naftigooda madaxda qaranka ama ha ahaadaan gudoomiyaasha ama xildhibaanada ama wasiirada naftigooda ay amniga qayb ka qaataan. kaliya waxa lagu soo karo in dawladda iyo shacabka isdhex galaan, islana degaan, oo hal goob wada degaan, oo gudoomiyihii ama ninkii madaxda aanu meel gaar u degin oo amnigiisa safe ku noqonayo, shacabkiina meel gaar oo cidla u degan oo isagana amnigiisa uu la boqo. marka waa inay isku dhex milmaan oo isku dhex jiraan. saas kaliya ayaa lagu soo karaa amniga magaalada Muqdisho. ciidamadan loogu talagalay xasilinta magaalada Muqdisho ayaa hawshoodu ay tahay mid bilow ah, waxaana shacabka Muqdisho ay ka dhursugayaan sida ay ciidamadani ugu guuleystaan
sugidda ammaanka magaalada muqdisho muddada 90 casho ah ee loo cayimay. xasan kaafi qoyste, v o a, muqdisho. cudurka ebola ee dilaaga ah oo lagu arkay dhulka baadiye ee dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo ayaa haatan ku faafay magaalo ay ku nool yihiin ilaa 1 milyan oo qof. hay-adda caafimaadka ee adduunka ee WHO ayaa haatan diiwaan gelisay 44 kiis oo cudurkaasi ah iyo 20 dhintay. wariyaha v o eda carol pierson ayaa inoo soo dirtay warbixintan ay kaga hadlayso farqiga u dhexeeya cudurkan ka dilaacay congo iyo kii 4 sano ka hor lagu arkay galbeedka afrika. warbixinta waxaa inoo haysa saare cabdi axmed. ayadoo ebola uu ku faafay dhulka baadiyaha ah ee koongada dimuqraadiga ah ayaa dor tedros adhanom oo ah madaxa hay-adda WHO wuxuu sheegay in wakhtigan ay ka wanaagsan tahay sidii hore. haatan waxaan haysannaa agab ka fiican sidii kii hore oo aan kula dagaalami karno cudurka ebola. mid ka mida tasiilaadka ugu fiican ee wakhtigan la haysto ayaa ah tallaalka tijaabo ee durbaba soo gaaray DRC arbacadii toddobaadkan. tallaalkan ayaa la soo saaray wakhti u dhow xilligii uu sida xooggan uga dilaacay cudurkan galbeedka afrika intii u dhexaysay sannadihii 2014 ilaa 2016, waxaana la sheegay inuu yahay mid waxtar leh oo aad u badqabo. ana maria hinerestrebo waxa ay la shaqaysaa WHO waxaana ay sheegtay in hay-adda caafimaadka adduunka ay ku kalsoon tahay in tallaalkan uu yahay mid la heli doono wakhtiga cudurka uu dilaaco. oo ah warshadii soo saartay tallaalkan ayaa u xaqiijisay WHO in la heli doono qiyaasyo dheeri ah oo tallaalkan ah haddii loo baahdo xilliga faafitaanka fayraskan. wasaaradda caafimaadka ee DRC ayaa wado qorshe lagu tallaalayo dadka ka shaqeeya fayraskan ka hortegistiisa iyo sidoo kale dadka ka agdhow meelaha ay ka socoto howlgallada ka dhanka ah cudurka ebola. waxaa kale oo ay wasaaradda wadaa goobo karantiil ah oo loo samayn doono dadka si loogu dabiibo uu soo rito iyo sidoo kale diyaargarowga in la gaaro dhulka aadka uga fog magaalooyinka ee cudurka uu ku sii faafi karo. dr peter salama oo ka tirsan WHO We are very concerned and we are planning for all scenarios, including the worst case scenario. aad ayaan u walwalsannahay waxaan qorsheynaynaa wax kasta oo khatar ah wixii lagula tacaali lahaa haddii ay imaado. xataa waxaan u diyaar garoobaynaa xaaladda ugu adag haddii ay dhacdo. arrinka ugu daran ee laga cabsi qabo ayaa ah iyadoo fayraskan uu si xooggan bulshada ugu dhex faafo sida uu leeyahay salaama. waxaana uu sheegay in cudurkan inuu soo shacbaxo ay qayb ka qaadatay halkiisa oo laga ogaaday madbataka oo iyadu noqotay mid wax badan bedelay. magaaladaasi ayaa waxa ay ku taallaa dacalka webiga Congo waana maranbiyood aad loogu safro oo dhan 400 oo kilomitir oo ka soo bilaabmo Kinshasa oo ay ku nool yihiin in ka badan 10 milyan oo dada. waxaana Peter Salamo uu booqday DRC May 13 markaasi oo uu la socday Tedros. waxaana markaasi ay sameeyeen cilmi baaris ku saabsaneed markii hore cudurka sidii uu u dilaacay sanadkii 2014. WHO ayaa aad isu abaabushay kadib markii faafitaan aad u xawli sarreeya uu cudurkaasi ku faafay galbeedka Afrika markaasi oo uu dilay ku dhowaad 11,000 oo dad ah. Marison ayaa leh waa wax si weyn u muuqda sidii ay hay'adda uga falcelisay arrintaasi. The response to this outbreak has been quite different from the very delayed response over a 6-month period. jawaabtii laga bixiyey xilligan markii cudurka uu dilaacay waxay ahayd mid aan daahis lahayn marka loo eego kii 2014 oo laga jawaabay 6 bilood kadib faafitaankii galbeedka Afrika uu ku faafay fayraskaasi iyo sidoo kaleeto 9 bilood kadib markii Congo uu cudurka haleelay. halkaasi oo ah wakhtigan dal leh khibrad ku filan oo lagula tacaalo Ebola. inkastoo laga cabsi qabo faafitaanka fayraskan inuu noqdo mid u sii gudbi kara si xawli ah magaalooyin badan sidii markii horeba uu ku sameeyay galbeedka Afrika, haddana waa laga diyaar garoobay in la xaqiijiyo in uusan noqonin mid saameyn weyn reebo.
warbixintii carol pierson waxay noo soo jeedinaysay saare cabdi axmed. wasiirada arrimaha dibadda ee ururka jaamacadda carabta ayaa cambaareeyey tallaabada dowladda maraykanka ay safaaradeeda ugu rartay magaalada tel aviv uguna rartay magaalada qudus, waxaana qaar ka mida wakiilada wadamada carabta ay tallaabadaasi ku tilmaameen daandaansi. qaar ka mida wasiirada ayaa sidoo kaleeto ku baaqay in baaritaan caalami ah oo madax bannaan lagu sameeyo dilkii toddobaadkii hore loo geystay dad reer falastiina oo banaanbaxayay agagaarka deegaanka u dhexeeya gaza iyo israa'iil. edwin uranium ayaa warbixintan ka soo diray magaalada qaahira, waxaase soo jeedinaya haaruun macruuf. wasiirada jaamacadda carabta waxay jeediyeen hadallo adag oo ay ku cambaaraynayaan dilka banaanbaxayaasha reer falastiin oo ay toogteen ciidamada israa'il meel u dhow deegaanka ghaza, waxaana wasiirada qaarkood ay ku baaqeen baaritaan caalami ah oo madax bannaan oo lagu sameeyo dilkaasi. qaar badan oo ka mid ah wufuudda jaamacadda carabta ee ka soo qayb gashay shirkaasi waxay dhaleeceeyeen tallaabada maraykanku uu safaaraddiisa kaga raray magaalada tel aviv uuna u wareejiyey magaalada jerusalem ama qudus, waxaana qaarkood ay tallaabadan ku tilmaameen mid daandaansi ah. guddoomiyaha jaamacadda carabta axmed abulkayd ayaa shirkan u sheegay in tallaabada maraykanku uu qaaday ay iska indhatirayso sharciyada caalamiga. نحن أمام حالة من العدوان السافر على القانون والشرعية الدولية جسدها نقل السفارة الأمريكية لدى دولة الاحتلال إلى مدينة القدس. waxa uu sheegay in tallaabada maraykanku ay xadgudub ku tahay sharciyada caalamiga ah. waxaa diiday ayuu yidhi tallaabadaasi beesha caalamka iyo dunida carabta. waxa uu intaas ku daray in tallaabadani ay horisay xiisad ka aloosan gobolka. axmed abulkayd waxaa kaloo uu sheegay in go'aanka maraykanku uu dhiiri gelinayo gacanka hadal ay samayso dowladda israa'il kadib ayuu yidhi dilkii dhowaan lagula kacay dadka reer falastiin ee ku banaanbaxaya deegaanka ghaza iyo israa'iil u dhexeeya. saraakiisha maraykanku waxay iyagu eedda dilkaasi ay dusha u saareen ururka xamaas. wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka reer falastiin riyaad maliki waxa uu isagu cambaareeyey waxa uu ugu yeedhay eexda maraykanka oo uu yidhi waxa uu u janjeersaday dhinaca israa'il, waxaana rarista safaaradda uu ku tilmaamay qalad taariikhi ah. نلتقي اليوم على وقع مجزرة دموية عنصرية ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بدم بارد ضد أبناء شعبنا العزل المشاركين في مسيرات العودة السلمية في قطاع غزة. riyaad maliki waxa uu ku tilmaamay gacanka hadalkii ka dhacay xuduudda ghaza inuu ahaa dil cadowtinimo ah oo lagula kacay dad falastiiniyiin ah oo si nabada u banaanbaxaya, kuwaasi oo dalbanayay xaqa ah inay ku soo guryo noqdaan dhulkoodii, dhulkaasi oo haatan ay haysato israa'il. riyaad maliki waxa uu sheegay in wasiirada carabtu ay kalsoonidooda lumin doonaan haddii ay tallaabo cad ka qaadi waayaan dilkaasi. wasiirka arrimaha dibadda ee jordan ayman safadi oo dalkiisa ay ku nool yihiin muwaadiniin badan oo asalkoodu yahay falastiiniyiin ayaa hadallo culus ku weeraray maraykanka iyo israa'il. ندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية والقانونية وإطلاق تحقيق أممي مستقل بالمجزرة التي ارتكبتها إسرائيل ضد المدنيين في غزة. لن يلغي حقيقة أن القدس الشرقية أرض محتلة لن ينتهي الصراع إلا باستقلالها. ayman safadi waxa ugu baaqay beesha caalamka inay qaado mas-uuliyadda xuquuqeed ee dadka ayuu yidhi sida aan la aqbali karin loo laayay. waxa uu sheegay in qudus ay tahay magaalo la haysto, waxaana uu intaas ku daray in magaalada mustaqbalkeeda ay go'aamin doonto dowlad madax bannaan oo reer falastiin ah. ayman safadi waxaa kaloo uu sheegay in gobolku uu marayo marxalad adag, waxaana uu yidhi ceersi la'aanta haysata falastiiniyiinta ayaa isku beddeshay dagaal. wasiirka arrimaha dibadda ee sacuudiga caadil jubayr oo guddoominayay shirka wasiirada arrimaha dibadda ee jaamacadda carabta ayaa wariyaasha u sheegay kadib markii uu shirkaasi dhammaaday in diblomaasiyiinta carabtu ay kiiskooda la aadi doonaan qaramada midoobay, waxaana uu sheegay inay isku dayi doonaan in qaraaradooda ay u beddelaan waxqabad siyaasadeed. guddoomiyaha ururka jaamacadda carabta axmed abulkayd ayaa intaasi ku daray isaguna in diblomaasiyiintu ay si gaar ah dacwadooda u gaadhsiin doonaan golaha guud ee qaramada midoobay, inkastoo ayuu yidhi ay filayaan in dowladda maraykanku ay saari doonto diidmada qayaxan ee vito qaraar kasta oo cambaaraynaya dowladda israa'il. waxaa kaloo axmed abulkayd uu intaasi ku daray in jaamacadda carabtu ay sidoo kale xiriir la samayn doonto
golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ee fadhigiisu yahay magaalada Geneva. warbixintii wariyaha v o eda Edward Iranian oo soo jeedinaya Haruun Macruuf ayay taasi ahayd. haatana tacsi kooban madaxa laanta afka soomaaliga ee v o a qaybta soomaaliga cabdiraxmaan yabrow iyo shaqaalaha idaacaduba waxay tacsi u dirayaan ehelada iyo asxaabta allah u naxariiste ciise daahir buraale oo ahaa qunsulkii safaaradda jabuuti ee washington oo khamiistii shalay ahayd ku geeriyooday dalkan maraykanka. qunsulkaasi ama diblomaasigaasi ayaa maanta lagu aasayaa dalkan maraykanka. buraale waxa uu dhashay sanadkii 1952 waxaana uu ku dhashay magaalada cali sabiix ee dalkaasi jabuuti isagoo ka qalin jebiyey jaamacaddii lafole. samir iyo imaan allaha ka siiyo intii uu ka baxay. buraale waxa uu saaxiib dhow la ahaa idaacadda voice of america. dhammaan shaqaalaha idaacaddu mar kale way u tacsiyadeynayaan inuu samir iyo imaan ka siiyo dadkii uu ka baxay. waa hagaag markana barnaamijkii amuuraha islaamka iyo xuseen barre aadan. kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka. muslimiinta dunida ayaa ku guda jira bisha barakaysan ee ramadaan. haddaba muxuu yahay fadliga bisha ramadaan iyo faa'iidada soonka? waxaa arrintaasi faahfaahinaya sheekh cabdulaahi nuur abulfadli oo ah imaamka masjidka al-sunna ee magaalada st paul ee gobolka minnesota. bishan waa bil fadli badan. ilaahina subxaanahu watacaala hibooyinka uu siinayo addoommadiisa mu'miniinta ah waxyaabaha ugu horeyn bay ka mid tahay. bishan waa bil waajib ku ah dadka muslimiinta ah inay soomaan. fadaa'il badan bay leedahay bisha. fadaa'isheeda runtii waxaa kaaga filan inay tahay bishii ilaahay uu doortay, uu ka doortay 12 bilood. bishii uu ka doortay weye, waa bishii ilaahay qur-aanka uu soo dejiyey. waxaa la rabaa dadka marka muslimiinta ah in ay ka faa'iideystaan fursadan oo runtii qofku ilaahay soo haleeshiyey, ilaahay uu la doonay wax weyn uu la doonay alla subxaanahu watacaala khayr ah. waa bil marka ay dhalato albaabada jannada la furo, albaabada naartana la xiro, shayaadiinta maaragtay la yareeyo oo la xirxiro, lagama hela bilaha kale. waa marka fadli dheeraada oo ay leedahay bishaan weye. marka fadaa'il fara badan oo runtii maaragtay aysan lahayn bilaha kale ayay leedahay bishan. ilaahayna wuxuuba leeyahay subxaanahu watacaala xadiis alqudsi ah, bini aadamka acmaasha ay sameeyaan oo dhan ajirkeeda waa la garanayaa, waa loo labalaabaya maaragtay 700 adcaafan baa loo lalaabaya. laakiin soonka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala ila asiyaam fa inahu lii wa ana ajzi bihi. soonka anaa iskale, anana ka abaalmarinayo. bimacnaa waxa weeyaan waxa laga helayo oo fadli ah soonka iyo ajirka laga helayo waa wax ilaahay subxaanahu watacaala uu la khaas noqday. soonka ayay khubarada caafimaadku tilmaamayaan in uu leeyahay faa'iido badan. hase ahaatee maadaama oo lagu jiro maalmihii u horreeyey ee ramadaan, maxay tahay cuntada ugu fiican ee lagu afuri karo? sideese looga badbaadi karaa isbeddelka jadwalka cuntada? waxaa faahfaahinaya arrintaasi doctor maxamed faarax bawlo oo ku sugan magaalada nairobi. bisha ramadaan oo barakaysan barakadeeday wadataa. dadka badankoosna cuduradii hayn jiray waaba ka baxaaba ramadaanka fadligiisa awgiis. sidaa la yiri oo nebigeena noo tilmaamay, waa tii la yiri cuntada maaragtay 3 meelood ha loo qaybiyo, meel ha laga dhigo tan adag, biyo iyo dabeel. marka qofkii iska badbadiyo kulligeedba waxa waaye horta caafimaad darro bay keentaa. marka waxaad u malaysaa inuu ilaahay noo jideeyey ramadaanka si maaragtay ay maaragtay dheefshiidka bini aadamka u nasto maadaama sanad dhan wax lagu guraayey, in markaasaytu maaragtay uu xoogaa nasniino u helo. wixii nasniino helaana hadhow xoog helaa. marka waxa weeye wax ilaahay noogu nimceeyey ramadaanka. waxaana rajaynaynaa in maaragtay caafimaad badan laga helo ramadaanka. caafimaad badan laga helo baan la hubaa. dadka noo imaada qaar cuduradoodii horeeto ka sheeganayana waa jiraan, qaar maaragtay xoogaa gaas baa igu kacay ku dhahaya waa jiraan.
waxaa laakiin ku fiican waxyaalo jilicsan in lagu bilaabo sidii uu nabigeennaba noo tilmaamay timir haddii la waayano biyo marka waxaas in lagu bilaabo waa maaragtay u fiican cunto jilicsan sida suubka oo kale sida maaragtay waxyaalo culus iyo soomaalida say u badan tahay waxyaalahan basbaaska leh iyo maaragtay kabaab iyo sambuusa iyo waxaas anigu nina kulama taliyeen laakiin cunto fudud oo maaragtay sida maraqa iyo maaragtay waxyaalahaas fruitiska iyo in lagu bilaabo baa aniga ila tahay inala fiican nin baa hadda ka hor wuxuu yidhaahday oo bini aadamka dhan dhintay haddii lasoo nooleeyo oo la weydiiyo maxaad u dhimateen wuxuu leeyay waxaan cunay baan u dhintay waxaan cunay oo aan laqay baan u dhintay marka waxa weeye waxa qofka uu cunaayo waa in ay balanced yihiin wax isu dheeli tiran waa in dufanka waxay ku badan yihiin la iska yareeyaa hilibka la iska yareeyaa oo maaragtay wax isu dheeli tiran la cunaa maaragtay protein leh oo maaragtay protein leh oo vitamin leh oo carbohydrate leh oo maaragtay biyihii ku jiraan wax isu dheeli tiraan markuu qofka cuno wax dhibaato ama keenayo kolesteroolka qofka qaba soomaya kolesteroolka wuu dhacaya laakiin waxaa shardi ah in markuu afuraayo uusan maaragtay jeex hiliba oo neef ari ah iyo soo hordhigin ama digaag iyo oo maaragtay xabad dhan ay soo ag dhigin oo waxaasayto uusan laqin hadduu waxaas laqo markaasayto uu afuray waxba uma tarayso yacni soonkii kama faa'iidayo wixii kolesterool ka yaraan lahaa kama yaraanayo laakiin hadduu si caadi ah wax u cuno oo weliba yareeyo waxaasayto uu ka faa'iidaysto kolesteroolkiisi hoos buu aadaya waa la hubaa dhinac kale waxaa jira in 10 maalmood ee ugu horreeya ramadaanka ay dadku buuxiyeen masaajidda iyagoo u xiise qaba cibaadada hase haatee waxaa dhacda in maalmaha dambe ay yaraato xamaasadaasi sida uu sharaxayo sheekh abulfadl waxaa la rabaa dadka muslimiinta ah bisha ramadaan ilaahay subxaanahu watacaala 30 beri ama 29 beri in dadku ay wada dadaalaan sida caadada ah dadka xamaasada hore iyo runtii maaragtay hamiga hore oo la hayo dadku sida caadadu ay tahayba waa lagu dadaalaa maaragtay qiyaamka iyo maaragtay runtii laakiin waxaa mararka qaarkood arkaysaa in dadku ay maaragtay marba mar ka dambeysa ay yara daalayaan waxaa la rabaa dadka muslimiinta ah bishan ilaahay subxaanahu watacaala waxyaabaha u dhex dhigay waxaa kamid ah in ay ku jirto habeen ka khayr badan 1 bilood habeenka marka 10 dambe ha lagu sheego laakiin qofka dadaala oo maalintuu ramadaan soo galo ilaa inta uu dhammaanayo dadaalo ayay u dhowdahay qofka inuu asiibo u helo intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelya mahadsanid xuseen barre aadan oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi amuuraha islaamka oo u dambeeya idaacaddeenii subaxnimo waa anigoo haaruun macruufa iyo saare cabdi axmed oo mar kale idin leh ramadaan kariim waxaan idinkaga tegaynaa nebi ammaankan مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا شو مقعيب بلا ومضنا معبودك وامانين يا رمضان مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان شو مقعيب بلا ومضنا معبودك وامانين يا رمضان مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا مسكين يتاجر بشيل المسوق إسلامكم مذوبين يا رمضان مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان مسكين يتاجر بشيل المسوق إسلامكم مذوبين يا رمضان مرحب يا رمضان